1995, Congress adopted the Jerusalem Embassy Act, urging the federal government to relocate the American embassy to Jerusalem and to recognize that that city, and so importantly, is Israel's capital. This act passed Congress by an overwhelming bipartisan majority and was reaffirmed by a unanimous vote of the Senate only 6 months ago. Yet for over 20 years, every previous American president has exercised the law's waiver, refusing to move the U.S. Embassy to Jerusalem or to recognize Jerusalem as Israel's capital city. Presidents issued these waivers under the belief that delaying the recognition of Jerusalem would advance the cause of peace. Some say they lacked courage, but they made their best judgment based on facts as they understood them at the time. Nevertheless, the record is in. After more than 2 decades of waivers, we are no closer to a lasting peace agreement between Israel and the Palestinians. It would be folly to assume that repeating the exact same formula would now produce a different or better result. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. In 1995, Congress had celceliyo qayladhaankayga ku saabsan warbixinta taasoo ah Mareykanku inuu diyaarinayo inuu Qudus u aqoonsado caasimadda Israa'iil. Qudus mudane Trump Qudus waa diilinta guduudan ee Islaamka. inta dhaawaca dadka Falastiin dhiigga laga daadinayo uu sii soconayo waxaad gudubyada xuquuqda silcinta iyo weerarada ay sii socdaan in la qaado talaabadan lagu taageerayo Israa'iil. arrintani kaliya xadgudub kuma aha heshiisyada caalamiga laakiin waxay kicinaysaa dareenka iyo shucuurta insaaniyadda haddaanu nahay madaxda ururada iskaashiga Islaamka
dhibaatadan si go'aan cad ah baanu dabagal ugu samayn doonaa haddiiba tallaabada noocana ay qaadeen waxaannu isugu imaan doonaa shir madaxda ururada iskaashiga islaamka magaalada istaanbuul 5 casho ilaa 10 casho gudahood arrintaana waxaan ka qaadi doonaa tallaabo dheeraada waxaan abaabuli doonaa dhammaan dalalka islaamka waxaanuna dhigi doonaa dhacdo aad u weyn waanu mahad celinayaa hogaamiyayaasha kulanka waayo dhacdadani maaha mid caadi ah dowladda Mareykanku ma waxay weyday shaqo kale ay qabsato daacish miyay ka soo dhammaadeen ma intan uunbaa u harsanayd Netanyahu waxa uu awoodi la'yahay inuu soo afjaro dhibaatooyinka ka dhacaya gudaha Israa'iil si aan gabasho lahayn ayaanu sii wadi doonaa dagaalkeena ku aadan arrinta xataa haddii ayna gaadhsiinayso inaan xiriirada diblomaasiyadeed ku jarno Israa'iil وبعدين هو ليش هو القدس ما يسوى انه واحد يتحمل ضرب ويتحمل تدمير ويحصله ويحرروا من اسره ما يسوى مصر الرسول ما يسوى شو وقت تهتز الشوارب لو بس ادري شو وقت تهتز الشوارب وش وقت الناس ينتخون اذا اقدس المقدسات ما ينتخونها مع ذلك يقولون عرب ما ترينا بالتاريخ انه العربي يتحمل مثل هذه المعاني مثل هذا هل يصروا شو وقت اليهود صاروا شجعان بالتاريخ كل عبرهم اهل زوايا مظلمه اهل فلس يعني ابو بريصه ينبغي ان يوضع حد للصهيونيه على العرب أن يصحوا عليهم أن يصحوا كافي يقبلون إهانات من أمريكا ومن الصهيونية كافي قبول بالمهانة